واتهي صاحب بيال مالين عصب مقال عصب يوليبنا برنامج كيني برا فنان كاغا oo aan ku casuunay fanaanad aad loo jecel yahay Farxiya Axmed Cadaawe Farxiya Fiska soo dhawow ku soo dhawow Cadnaan Show oo ku salaam walaalo waan ku mahadsan tahay Cadnaan Cabdi Saxadiid aad iyo aad u mahadsantahay waa tahay Farxiya waad mahadsan tahay sida quruxda badan leh ee aad barnaamijkeen aad uga soo qayb gashay maanta waxa aan isleeyahay Farxiya waxay ka mid tahay bulshada Soomaaliyeed fanaaniinta lagu jecel yahay maxaad isleedahay bulshada reer Somaliland aad bay ku jecel yihiin heesaha hadday dhageysanayaan iyo hadday live ku arkaan maxaad isleedahay iyaga laftarkooda waa aad ku mataysatay jacaylka ay ku qabaan bulshadaasi reer Somaliland anigu waa jeclahay jacaylka aan jeclahay dartiisa ay jecel yihiin waa iska qiyaasi kartaa intaas garab taagnaa ilaa maalinta fanka soo galay ilaa hadda kama haro xafladahooda heesahooda waa jeclahay inaan u heeso waa jeclahay inaan amaano waa jeclahay hadda waa dhiigayga iyo dhuuxayga heestaan ugu jeclahay heesahaaga waa heesta hargeysa inay roongo si bulshada kale ay noo dhageystaan maxaan caradii goobtiyo curadii dhaqankiyo fakay maxaan ku caloolsamaa waliba ka jeclaa cindiga inaan cakuso oo dhigoon carfiga laydhaada wacan mar uun ku caweeya rabay waaw taas waxay ahayd heestii hargeysa iyo Farxiya Fiska oo codkeeda macaan ugu qaadaysay aad baad mahadsan tahay Farxiya jacaylka sidee isku tihiin isaga aniga dilaa jacaylka sameeysan walaalo ha jacaylka naftirkiisa wal sheegaa waa anigaba maba iga dhamaado fanka goormaad isleedahay waad ku soo biirtay Farxiya ahaan oo aad soran kartaa waqtigaas baad fanka ku soo biirtay aniga fanka waxaan ku soo biiray 2006 laakiin qarsoodiyan ku heesi jiray maadaama familigeyga ay ogoleen qoto ma fahamtaadi ya dhuumaaleysi aan macnaha kabanka lagu tumi jiray anoo isqarinayo laakiin waxaan soo shacbaxay 2008 markaad isleedahay fanka maanta waad isku tuhantay oo waxaan ku uri fanka barti kugu sareysay uu maraya goorme waxay 2006 kaas markaan ku sheegayo laba cajalo wiilasha maxay ahayd al-ustaad Gaacid inta ka salaama iyo Cabdicasiis oo boongada tumaayay Gaacid wuxuu tumi jiray kabanka kaban aan ku heesabay ii bilaabay fankaan igu soo dhiirigeliyay wax weyn gacan weyn ka geesta fankayga oo aan raba anigana markaan isbaranayna inaan cajaladaha ay duubaan heesaha aan ka duubto laakiin aniga aan fanaanad noqonin ma fahamto oo aniga una iska dhageysto marka sidii markay ii dhameeyeen cajaladihii aan waxaan ku dhahaa aniga cajaladihii waa qaadanaa waxay dhaheen ku qaadanay xabad waa inaan noo reebto sayidin kugu reeba aniga inaan duubtaan rabaan dhahay oo guriga ku dhageysta alaabteeda isaga dhaqday aniga fanaanad muwaalantiin dhimasho aan ka xigay adi cid Kenyaati oo hoos gurigeyga hoostiisa deganeed oo aan kabanka ku tumanayna oo af Soomaali oo qoonaan garteen gashay af Ingiriis ana af Carabi kuma aqaano gaaclak af Carabi ku hadla waaye man muwalad waaye bas garteen gala waxay gabadhan familkeeda wadaado waaye mana heesto waxeeda ayada rabto ayada in ka saxan si cajaldeeda okay aan dhahay waa leeyay labada cajal waa leey dhiga marka cajalada way isku yihiin af Ethiopiana ku qoran musqushan gala waa soo noqday labada cajalan qaatay haddii tan marka Ethiopianka aan ku hormari lahaa isla marka intaan degtaan ka daba tagi lahaa moogta taabki buuxay aniga aan lahaa aan gashtay markay dhamaatay intay bi joogaan boob igu tala galeen moogta cajalada kale way kala bedeleen adiga guriyooda ay joogaan ba tii kala galiya maagay bismillaahir rahmaanir rahiim waxa igu soo booday Ethiopian waxaan ka gaarahay 1 hour ka hor waa sii baxay guriyooda ay joogaan waxay noqotay marka inaan ayaga dhaho ii soo celiya haddana waa fikir koobiye ka sameysteen marka saasa waxaan dhahay codkaadu waa baxay maxaa sugay waa tahay saas baan soo galay maxaad jeceshahay Farxiya samaxad nacabtahay aniga adduunka Ilaahay waxa uu nacbaha ceebta iyo dhibaatada waxaan jecelahay farxadda iyo qosolka iyo habiga one day hadaa stress ahaado ama aan faraxsanayn caadi laga dareemo waayo anaaba waxaan u dhashay habiga jacaylka aan ku sheego dhanba aniga dhanba waxaan ahay qof u dhalata farxad marka farxad waa la muhuraan haddii lagu dalxiiskeeyo adiga Farxiya ahaan haddii lagu dalxiiskeeyo xageed jeclaan lahayd in lagu dalxiiskeeyo oo aad soo dhan lahayd alla ilaahay meeshaas kugu soo baxaysiin in lagu dalxiiskeeyo wallahi billahi taala meelo badan oo inta lagu soo koobi karin aan jeclahay inaan dalxiis u tago halkee ka mid
waxaa kamid ah sida hadda ka hor aan sheegay Switzerland waa jeclahay Italia waa jeclahay waa meeshan kusoo koray iyo qaar kale oo badan haddii adiga farxiya ahaan lagu casuumo xageed jeclaan lahayd in lagu casuumo aniga hadday casuumayso horta hore been kuma sheegay aniga waxaan ahaa vegetable cuntada waxaan jeclaa qudaarta hilibka waa cunaa horta cid waxaan ka dhashay ilaahay xalkeeda uu yahay maqaarka ma fahamta oo ayaaba diirtaanbo laakiin aniga waxaan aad u jeclaa seafoodka ha heesahaaga tiradoodu waa imisa baad is leedahay wallahi hadda xisaabi dhahdi ma soo xisaabi kari wali inta buugi qalin qaatay inaan qoro maahane ma tiri karo aniga haddaan ku dhaho intaas waa hisbaan ku sheegay markaad adigu qiyaasto intay gaadhaan bal noo sheego adiga 100 way gaaraan haday dhaafin dhulka Soomaaliyeed meel wada aad soo martay inteed is leedahay way kaaga dhimayn ama show kuma dhigin oo waa inaad ku dhigtid mustaqbalka dhulka Soomaaliyeed waxa ay dhiman burca horta show kama dhigin laakiin waa tagay berbera waa tagay show kama dhigin ii sheeg Buntland waa ka dhigay Garowe ka dhigay Boosaaso kama dhigin adiga meelo badan laas caana kama dhigin wajaar kama dhigin waa tagay Gaariso waa tagay kama dhigin adiga wadan jecel naagta waxa ahaa Kenya tigidhka inta iska dhigtay baawur qaadatay ee ka baxday 11 o'clock habeenkii Nairobi inta ka baxday habaas weyn meel la dhahayo ku tagtay baawur ayadoo saaran saan wadanka Soomaaliyeed u barto Hargeysa intaan ka baxay ilaa Buntland socday ilaa Boosaaso socday baawur saan dhulka Soomaaliyeed u barto ha meel badan wali la isma gaarin dhulka Soomaaliyeed ku rajo jigjigana waa ka dhigay inta aanad wali ka dhigin meesleed waad ka dhigi doontaa insha Allah ha waa ka dhigi doonaa hadaan noolaa insha Allah waa soo macsalaameena markaan soo gabagabeynaa markaas aad soo maraysa insha Allah ha waa tahay burco aad baad u amaantaa intaan anigu ogahay markaas dalka burco waad amaantaa maxaad is leedahay burco waad ku amaantaa balse wixii aad burco ku amaanaysay ee aad ka aaminsaneed farxiye fiska ahaan ma ku soo aragtay burco ma sha Allah wallahi horta burco gudaheeda waa galay Allah u naxariisto waxaan aad u jeclaa oo aan raba aad inaan macnaha u arko sooraan iyo jawaan waagay joogeen ilaahay amarkiis anagoo joogna sheekh aan hadda ka hor ilaahay amarkiis saxadiid maxamed saxadiid SMS intaan ka salaama walaalkay markaasuu wiri burca aada anagana marka meesha program aan u tagno home cable aan wateen tuuran sameynayna oo Somaliland burca ma u socotaa sooraan la igu soo dhacay jawaan waa ku raaca marka misdeen burcaado show ka dhigaayo ila dadku way igu dhagaayaan moogta showna ugu ma talagalno tuuran wadne sidii aan baawar ku raacno waa baxnay qarsoodiyan ku tagay bis sooraan raadina gurigiisa noola tilmaamay wiilasha xataa ila socday ee home cable ka shaqeynayay ee waday ee sooraan ay isqaaneen markaan burca tagna la wacay gurigiisa yaqaaneen gurigiisana geeyeen asna magaalada ku maqnaa sidii aan sooraan iyo jawaan kula kulmay marka waxaan ku dhahaa dadka reer burco يعني ما دام أنا شو وديجين وقت كانوا ويريه برنامج يسعد عن كسر تجي جعلها أيوة قبر هربر أنا واجي هذا ونجعلها أنا هربر الدعاية ده نجعلها نبكو ده نجعلها هاي كور هربر عم أدوك ونجعلها أنا مركو ربا هذا كور وحلا يجها يا وحنا هرت كو سومال أنت تجي وحنا كنا سومال هذا نتجه هنكوري يا سيديار دي يسوي وده برعاي يجي جسوا والله because dadka aan ka barto waa wada funny waa wada dad qalbi xaara waa wada dad happy ah waa dad deewala والله أنا برع واجعلها منو تجي لكن هذا وجعلها لكن هو تجي دونا إن شاء الله دور كان عم بيحدون إن شاء الله برعنك بالله وقت يرجعوا في النبرع ما حد شيء فرحية وقدام بنتي إن البرنامج كأنه كسوق بيسو وحن كسوق جبينا يا صومالي هجروا هجوكتو ملك استجوا أنا استعلادان صومالي وصومالي تدكوا دتكي دلكوا دلكي النجوا النجي واسود جعلها هلا زعل هذا صومالي hees ka mid ah heesahaaga bal farxiya ay maanta noogu soo khatin waxaad tiraahdaa waa taas asxaabteedina aad baan u salaamay xagga gale egmadaha jaleecadaha ku arkayo ku caashaqay ku ilmeeyay dabahde afku been ma sheegine وانكو يلدراني أبوه لاي لاي
halaynabto dandalan abo laylalay halaynabto ogolaha haday taade hadna mayhi abal gudin waata aad baad mahadsantahay farxiya heestaa horta farxiya waxaan u malaynayaa inay tahay heestii kugu horreysay may iguma horeynin heestaa laakiin heesta saddexaad ay ahayd aniga waxaa igu horeysay sadii calaf taan kusoo baxay ahayd waxaa ku xigtay duul wada dhishaan nahay waxaa ku xigtay maan qaboojiyo waxaa ku xigtay inaabte tii afraad ay ahayd laakiin way isku wada xigeen bilo ay isku xigay ahaayeen heestan markaa midhaheeda yaala heestaa midhaheeda iyo laxankeeda waxaa iskale faarax murtiile magac laga maskiin ma aha abwaankeena faarax halkan baan ka salaamaynaa mar haddaaba heestii afraad soo galay aad baan u salaamaynaa heesta afraad aad baad u mahadsan tahay farxiya waan kaaga mahad celinaa sida quruxda badan ee aad barnaamijka nooga ogolaatay waana ku salaaminaa adaa mudan walaalkay cadnaan show kusoo dhawaada